Shirkada diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa soo saartay go'aan ay ku joojinayso duulimadyadii ay ku tagi jirtay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika isla markaasna ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Kenya Airways ayaa lagu sheegay in ay joojisay duulimadyadii ay ku tagi jirtay 7 magaalo oo ka tirsan qaaradda Afrika iyada oo aysan shirkadu faahfaahin ka bixin sababta rasmiga ah ee keentay in ay joojiso duulimadyadii wadamo ka mid ah Soomaaliya. 7 magaalo ee ay joojisay diyaaradda Kenya Airways ayaa kala ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, magaalada Bamako, Maputo, Brazzaville, Ballantine, Khartoum iyo sidoo kale Luanda. Warkan ka soo baxay Kenya Airways ayaa sidoo kale aan looga hadlin haddii ay go'aanka yahay mid ku meel gaar ah ama uu yahay mid ka dambaysa. Shirkadda Kenya Airways ayaa bishii November ee sanadkii 2018 si rasmi ah u bilowday duulimaadka tooska ah Muqdisho iyo Nairobi, waxaana ilaa iyo hadda la ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay joojinta duulimaadyadii ay ku kala bixin jirtay Soomaaliya ayaa 3 bishan dib u bilowday duulimaadyada caalamiga ah ee imaan jiray magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka ee Soomaaliya. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay diiday in ay fasaxdo duulimaadka qaadka Kenya ka imaanayay, waxaa arrintan ay dhici kartaa in go'aanka ka soo baxay diyaaradda Kenya Airways ay jawaab u tahay hor istaaga dowladda Soomaaliya ay ku sameysay diyaaradaha qaadka ka keeni jiray dalkaasi Kenya. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale iyada oo dib u fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee imaan jiray dalkeeda waxaa liiska wadamada loo fasaxay ka reebtay Soomaaliya, waxaana muuqato in uu jiro khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya labada dal.